asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena gorfaynta ciyaaraha. qodobada barnaamijkeena maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caqliga macmalka ayaa saadaaliyay cidda gaaraysa kama dambayska tartanka koobka kooxaha adduunka. Arsenal oo dalabkii ugu horreeyay u gudbisay ciyaaryahan Yogaris. Alexander Arnold oo markii ugu horreysay ka hadlay waxa ku qasbay inuu kusoo biiro kooxda. Liverpool oo go'aan ka gaartay mustaqbalka Luis Diaz. Darwin Núñez oo iska diiday kooxdani. caqliga macmalka ah ee loo yaqaana AI-ga ayaa saadaaliyay in finalka koobka kooxaha adduunka ay bisha July isku haleeli doonaan kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. saadaasha ayaa muujinaysa in Real Madrid ay ugu dambeyntii ku guuleysan doonto tartankani iyadoo Paris Saint-Germain lagu garaacayo 3-2 finalka. Mbappe ayaa la filayaa inuu dhalinayo 2 gool kulankaasi, halka goolka saddexaad ee kooxda Real Madrid uu saxiixi doono Vinicius Junior. Dembele iyo Fabian Ruiz ayaa dhanka kale loo saadaalinaya. haddii Madrid ay ku guuleysato koobka waxay kasban doontaa lacag ku dhow 150 milyan. sidoo kale Madrid waxay xiran doontaa astaanta koobka kooxaha adduunka ama World Champion Badge muddo 4 sano ah ilaa iyo tartanka xiga markaasi laga gaarayo. wargeyska Record ee dalka Portugalka ayaa daha ka qaaday in kooxda Arsenal ay dalabkii ugu horreysay ka gudbisay weeraryahanka Sporting Lisbon ee Victor Yogaris. dalabka ayaa la gudbiyay kadib kulan dhexmaray agaasimaha ciyaaraha Arsenal Andre Barta iyo mas'uulka sare ee Sporting Bernardo Pereiro kaasi oo ka dhacay Menorca Spain Arbacadii. si kastaba ahaatee dalabkaasi ayaa lagu waramayaa inuu ka hooseeyo qiimaha Sporting Lisbon ay ku doonayso ciyaaryahanka. madaxweynaha kooxda Federico ayaa horay u beeniyay wararka sheegaya in ciyaaryahanka lagu heli karo lacag 70 milyan. dhanka kale Sporting lagama filanayo inay dalban doonto si ay u buuxiso lacagta ciyaaryahanka lagu burburinayo qandaraaskiisa ee 100 milyan, waxaana la rumaysan yahay in wada hadallada lagu raadinayo xal dhexdhexaad ah oo ciyaaryahanka iyo kooxda u dhaxeeya. Trent Alexander-Arnold ayaa ka hadlay bixitaankiisii dareenka lahaa ee Liverpool isagoo muujiyay sida uu ugu mahadcelinayo kooxda 20 sannadood uu u ciyaarayay. waligay waxaan u mahadcelin doonaa Liverpool, waxayna mar walba taa ay ugu haan doontaa mid markaasi deena, ayuu yiri ciyaaryahanku. Trent wuxuu qiray in ka tagista Liverpool ay ahayd go'aan adag, balse uu dareemay in waqtiga saxda uu yahay inuu markaasi bilaabo caqabado cusub iyo weliba cutub cusub oo noloshiisa. daafaca midig ee reer England ayaa xusay inuu ku raaxaystay waqtigii Liverpool isla markaana uu jeclaa daqiiqad walba uu u ciyaarayo kooxda. intii uu joogay kooxda Trent Alexander-Arnold wuxuu ka mid noqday daafacyada midig ee ugu fiican caalamka, wuxuuna ku guuleystay koobab badan isagoo noqday halyey kooxda Liverpool. si kastaba wuxuu sheegay in hadda uu yahay nin qaangaara, khibrad leh, isla markaana diyaar u ah inuu gaalo guulo kale weliba meel ka baxsan kooxdiisa. go'aankiisii inuu ka tago Liverpool waxa kaliya sababay rabitaankii dheeraa ee uu qabtay kooxda Real Madrid. waan ogaa muddo dheer in haddii aan Liverpool ka tagayo kooxda kaliya aan aadi lahaa ay tahay Real Madrid, koox kale ma jirto. Trent ayaa isku muujiyay una sheegay warbaahinta. tallaabadan ayaa calaamad u ah cutub cusub oo bilowday xirfadiisa, waxaana uu Trent rajo weyn ka qabaa inuu saameyn weyn ku yeesho kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. wada hadallada u dhaxeeya Barcelona iyo Liverpool ee ku saabsan xidiga Colombiyaanka ee Luis Diaz ayaa si xawli ah u socda, waxaana la filayaa in heshiis rasmi ah lala gaaro toddobaadyada soo socda. Liverpool ayaa haatan diyaar u ah inay wada hadal la furto Barcelona maadaama ay qorsheynayaan inay yareeyaan waqti ciyaarista Diaz kadib imaantinkii saxiixa Fiorentina Worth. kooxda Ingiriiska ayaa doonaysa inay ka faa'iideysato dhaqaalaha ay ka heshay iibka Diaz iyagoo weli bandhigaya qandaraas cusub inkastoo 2 sano uga harsan tahay qandaraaskiisa. Diaz ayaa muujiyay rabitaankiisa ku aadan ku biirista Barcelona, wuxuuna si toos u follow gareeyay koonka kooxda Instagram-ka. kooxda reer Catalonia ayay u aragtaa saxiixiisa mid istiraatiiji u ah xoojinta garabka weerarka ee bidixda. agaasimaha sportska ee Barca Deco ayaa si shakhsi ah u taageeray saxiixa Diaz, halka tababaraha cusub ee Hansi Flick uu ogolaanshiyo rasmi ah siiyay in heshiiskiisa la dhammaystiro. labada kooxood ayaa hadda ku dhow heshiis ka gaaraan qiimaha iibka ciyaaryahanka, iyadoo Liverpool ay dalbanayso lacag ku dhow 80 milyan, halka Barcelona ay diyaar u tahay inay bixiso 60 milyan. Barcelona iyo Diaz ayaa mar hore is-afgarad gaaray, iyadoo taasi ay meesha ka saarayso suurtagalnimada koox kale inay soo farageliso wada hadalka.
Diaz ayaa sidoo kale iska diiday dalabyo lacageed oo xoogan uga yimid kooxaha Sacuudiga taasi oo muujinaysa sida ay uga go'an tahay ku biirista Barcelona iyadoo wax walba ay u muuqdaan inay si wanaagsan u socdaan. Barcelona ayaa rajo weyn ka qabta in heshiiska la dhammaystiro bisha Juun ama horaanta Juulaay taasi oo kooxda u keenaysa mid ka mid ah garabka weerarka ugu halista badan caalamka. Darwin Núñez ma tagayo kooxda Al Hilal xagaagan kadib markii uu iska diiday dalab ay u soo gudbiyeen sida ay warbaahinta Talyaaniga sheegayso. Kooxda Sacuudiga ayaa si weyn u doonaysa weeraryahanka Liverpool waxayna xitaa soo bandhigtay dalab weyn ka hor inta aan u dhammaan waqtigii koobnaa ee suuqa kala iibsiga ee kooxaha koobka adduunka ka qaybgalaya loogu talagalay. Si kastaba Núñez ayaa sida la sheegay diiday dalabkaasi isagoo doorbidaya inuu u wareego koox weyn oo ka dhisan horyaalka Yurub. Liverpool waxay diyaar u tahay inay ogolaato heshiis gaaraya 70 milyan balse kadib markii Al Hilal ay tartanka ka baxday kooxda Reds waxay doonaysaa inay suuq kale u raadiso fursad kale. Atletico Madrid ayaa weli ku dhow saxiixa lana socota xaaladda ciyaaryahankan iyadoo doonaysa inay ku soo darto weerarkeeda kooxda.